halkan aynu joognaa waa magaalada Hargeysa bartankeedii halkan xafiiska Cabdiraxmaan insha Allah yaqaana malaha waxa uu jeedaa dalka xafiisyaanka yar jirino kiisanaaba ugu mutakarsan oo aad la isugu yimaadaan maxamed xaashi dhamca gaariyo kamid ah dadka xafiiska fadhiista ayaan isla su'aasha weydiinaya waxaan leeyahay maxamed maxaad u malaynaysaa ciidanka nabadgelyada had iyo jeer la sameeyo inay burburiyaan oo sabab u yihiin burburkaas horta ciidanku wax ciidan la yiraahdo goolidii u jira ma jireen waxa jira saysaab dhan oo dawladnimo oo ballaaran ayuuba ciidanku wuxuu ka mid yahay qayb yar oo ka mid yahay gaariga gobolada halka maraysa hada isbeer baaru kala furfurto gaari ma aha dad gaariga furfurto oo midba meel dhigto indhaha meel dhigto oo buuriga meel dhigto oo mashiinka meel dhigto oo aad tiraahdo dabad indhaha soo qaadaya waan siraadaya oo meel waxba la qurbaaya waxay gaari noqdaan oo la fuulaa oo indhuhu siraadmaan oo mashiinku dhaqaaqa oo buurigu dadka qaada oo shirkad rawalku fadhiista marka waxaas oo dhan la isu geeyay baabuur sameeya marka hadaad kulba yar qaato oo tiro ciidanka nabadgelyada ka waran muxuu la dhaqaaqay waay waa isbeer baarka qayb yar oo kamid ah wixii kale hadaan samaysnayn ma shaqaynayo maamaha barigu ugu maamaasha ka horaadi weydiisay baa jirta nin giriga baa waxa la weydiiyay nin giriga baa waxa la weydiiyay oo kuugaha ayaa waxa la weydiiyay nin uu shaqaynayay oo kuugu ahaa baa wuxuu yiri shaah inoo soo kare shaah inoo soo kare kuugii baa wuxuu galay meeshii dadka jikii uu ku soo noqday wuxuu yiri waxaan hayaa 17 sababood oo aan shaah kugu karin karin ninkii odayga ahaa ee shaah u dirsaday baa yaaba wuxuu yiri 17 sababood ee aan shaah igu karin waa maxay wuxuu yiri marka ugu horeysa caleetii shaah ma hayo madoobay ninkii baa yaaba wuxuu yiri 16 sababood ee kala iska hayso ma hadaan caleetii shaah hay shaah karsami maaye 16 sababood ee kalaba inoo hay iska hayso horta waxa kulay dawladnimo ma jirto dawladnimo inoo dhisay oo qaab dawladeed oo dhisay oo inoo dhisay ma jiro marka su'aasha inta kuugu jawaabo waxaan xaq ugu leeyahay inaad xijina aad igu tiraahdo sababaha kale iska hayso ee nabadgelyo u dhismay